qaybaha bulshada ku dhaqan degmooyinka gobolka Banaadir ayaa aragtidooda ka dhigtay cudurka safmareenka ay dhibaatada ku haya caalamka oo ay Soomaaliya ka mid tahay kaasi oo si fudud ku faafa isla markaana aan lahayn dawo rasmi ah oo loo isticmaalo in qofka xanuunka coronavirus ku dhaco la karantiila mooyee qaar ka mid ah bulshada oo aan la dhaxmaray mikrofoonka ayaa tilmaamay inay diyaar u yihiin inay u hoggaansanaadaan awaamiirta wasaaradda caafimaadka ee la xiriirta ka hortagga iyo xakameynta cudurka coronavirus waxa ayna xuseen in la joogteeyo wacyigelinta bulshada waxyaabo cudurka fidin kara jeermiska fidin karo sida meelaha la isugu yimaado kale inaan la isugu imaanin axaadiis badan laga hayaa haddii ilaahay ku roon yahay waa jirtaa in cudurka laga fogaado laakiin haddaan Soomaalinahay anaga waxaan aaminsanahay inuusan cudurkaas ilaahay noo keenin dada labadii bil oo u dambeysay bishii u dambeysay oo dhan masaajid kasto qanuuda ka socdo waxaan ilaahay u baryaynaa inuu cudurka anaga noo keenin ninka ilaahay ka dhoorsado ilaahay ka baqo amaamiirta alla fuliyo ilaahay wuu ka badbaadinaa iyo amaamiirta taqaatiirta iyo dadka aqoonta u leh iyo digniinaha ay ka bixinayaan mas'uuliyiinta dawladda ciddii ma aragtay dadaalayso haddadaasho ciddi kalena in ay amaamiirta la siinaayo oo digniinta ah inay qaataan waa maqlaysaan Soomaaliya waa laga helay dad ajnabi ah laga helay qof kastoo ku dhacaya gaal iyo muslim midna male waa cudur ilaahay keenay hal dadaalo cudurkaasi ilaahay nooga qabto nadaafadana ha lagu dadaalo waxyaalaha ma aragtay munkarka keenayo ama shayaadiinta ku saabsan ama bulshada iskugu imaanayso muqaadaraadka shiishadoo kale waxyaalaha la cabaayo waxyaalaha ma aragtay keenayo in gacmaha la isku geliyo dadka isdiyaarinayo oo isku hanyoonayo dadka gacmahooda isku dhaweynaa in ay manaha inay dadaalaan nadaafadda ku dadaalaan waxaad arkaysaa dadkeena hadda Soomaaliya joogo marka ka soo hadlo assalaamu calaykum qofkii gacantii ku soo taagaya assalaamu calaykum salaanta ka qiimo badan la isku salaama ani ma garanayo marka hadii goor nadaafadda inkastoo dad muslim nahay shanta waqti aan dukanno salaada ilaahay aan dukanno oo aan weysaysanna haddana mar kasta waxa uu gacmaha hal dhaqdhaqaad dhahayo ma aha wax badan ku jiro gacmaha meel kasta ay taabanaan jirkaada ay taabanaan meel ay galaan ma ogid baabuur raacaysa albaaba furaysa qof salaamaysa gacmaha waxa waa bakteeri u badan soo qaadanaya marka nadaafadda jirka iyo tan gacmaha iyo tan guryaha intaba horta la iska hagaajiyo ilaahayna hala tala saarto in ilaahay kariim muslimiinta ilaahay ha ka badbaadiyo ilaahay noo yasiraayo kiiskii saddexaad baa Soomaaliya laga helay shalay waa kiiskii saddexaad la helo la xaqiijiyay Soomaaliya qaramada midoobay way xaqiijiyeen ilaa hadda lama arko Soomaalida kama baraarugsana dhimashada way badan tahay caalamka wali markaad eegtid magaalada Muqdisho kala caasimadda dalka Soomaaliya salaanta waa sideedii isdhexgalku waa sideedii meelo dhifi naadir la oran karo waa la yareeyay way jirtaa annagu hadda waxaanu ka walwalsanahay shacabka haddaan dad ma lihin beerleey oo dalka wax la soo baxa oo wax soo saarkiisa cuno dad waxaan nahay dibadda wax loogu keeno hadduu xanuunkan saameyntiisa sii socdo waxa dhacaysa dekedaha la kala xirto iraboorada la kala xirto dhibaatada noogu weyn hadda fikirana waxay tahay sidee dadkan wax u heli doonaan dadku kuma baraarugsana ganacsatadana waa ganacsato la iska dareemi kara golofyada inay qaaliyoobeen waa la ogyahay dawladda awaamiir ka soo saartay way jiraan waxaan dawladda wacyigelinta aad bay dadka ugu sheegtay telefishinka qarankan aad baan ugu dhageysanay dadka in la wacyigeliyay oo lagala hadlay xanuunka dhibaatadiisa horta Allah naga hayo dad muslimaan nahay wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhawaan shaacisay in dalkeena laga helay ilaa iyo 3 kiis oo coronavirus ah kaasi oo 2 ka mid ah ay muwaadiniin Soomaaliyeed yihiin halka qofka saddexaadna uu yahay shaqaale ka tirsan hay'adaha qaramada midoobay ee gudaha dalka ka howlgala